marka walaalayaal alxamdulilah iskaan baa lay saaray feeraha madaxa meelo fara badan lugaha dhaawacyaa iga gaaray madaxa jubxun baa iga gaartay feeraha marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin ma dhiman waa noolahay muhiimaddu waxa weeyaan arrintaas xun oo walaalayaal dhacday oo loo baahan yahay in dadka muslimiinta aysan dhibaato isu geysan hadda ma dhiman laakiin haddaan dhiman lahaa adeerkay muuse muxuu ka dheefi lahaa sumcad darro sharaf darro karaamo darro qof muslima oo walaalkiisa oo ehelkiisa yaa la ku jeesjeeso oo dilo maxaaro u gacan geliyo oohin baa i qabata markasta oo soo xasuusto reer hargeysa khayr allah in siiyo waa idin jeclahay walaalayaal wallaahi billaahi waa idin jeclahay soomaali idinka idin jeclahay weliga idinma halmaamahayo xasaankaad ii gasheen soo dhoweyntaad ii gasheen ehelnimadii walaalnimadii tolnimadii weliga idinma halmaamayo dad idinka sharaf badan weligay ma arkin khayr allah idin siiyo alxamdulilah hadda muusane soomaaliyay anugu meel walba la istaagi maayo waa lay xasuuqay nin raga weeye waa i dilay walaalkii weeye xaaran anigu u geli maayo imaaraadna u geli maayo dal iyo dadna iyo diinna anu gadi maayo walaalkii dhib buu ii geystay saasay tahay walaalkay khaldamay weeye feeraha kama qosli kara hadda inaa lilahi marka hadda aniga waa lay xasuuqay hadda dhihi maayo marka taas dib baan ugu soo noqonayaa waxaan xasuusinayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoy joogto soomaali weyn dowladda maraykanka gaar ahaan kongareska ayaa u fadhiya maalmahan oo dhan xasuuqa iyo xadgudubyada dowladda etoobiya ay ku hayso shacabka masaakiinta ee dalka etoobiya dadweynihii waa arkay marka waxaan la yaabanahay dadka oromada iyo xabashidu kacdoon xoog leh bay ka wadaan dalka maraykanka oo ay aayahooda iyo mustaqbalkooda u hadlaayaan innaga soomaalida dalkeennii soomaali galbeed ogaadeen iyo xoog baa lagu qaatay hase yeeshee soomaalida masaakiinta ee halkaa lagu gumaysto xuquuqdooda inay u doodaan waa ka aaminsan yihiin kongareska waa u fadhiyaa waxyaalaha laysku waafaqo waxaa ka mid ah etoobiya waxay ku doodi jirtay oo ay maraykanka iyo ay ugu goodin jirtay waxaan ka baxayaa barnaamijkii la oran jiray counter terrorism yaan ka baxayaa soomaaliya yaan ka baxaya meeshaas argagixisada lagala dirana waa been soomaaliya la qabsanaya marka etoobiya iyo kenya iyo uganda iyo mar kasta oo reer galbeedku ay wax ku cadaadiyaan ama danahoodii ka galaan waxay dhahaan soomaaliya ka baxaynaa soomaaliyay fadhiga ka kaca soomaaliya gudaheedana waa ku dhibanahay oo waxaan noqonay wax lagu gorgortamo afrikaanka xukunka ahaa etoobiya iyo kenya iyo annagii markii dowladihii gumaysanahayay ay u cagajuulayaan ay dhahaan wallaahi soomaaliya waa ka baxaynaa wallaahi soomaaliya gumaysiga annaga idin ka dagaalana annaga idin gacan gelinay annaga idin xoreynay waa ka baxaynaa
waxaan ummadda Soomaaliyeed marka ku nool ogaadeen iyo ka codsanayaa waa loo fadhiyaa qararaxna adag baan laga saarayaa in la xiro lacagahooda la joojiyo Interpol la xiriiriyo askarihii gobolada kuwii xukumay kuwii ururka xukumay in la soo xirxiro in dadweynaha meel kasta lagu xiro lacagahooda la xirxiro waxaan marka la yaabanahay dadka Soomaalida ee ku nool ogaadeen oo la xasuuqo oo jeel ogaadeen loo samaystay oo la iska xasuuqo iska aamusan وعلى الأقل حتى هيئتها حقوق الإنسان كي international world أن لا حريرين أو دبك الوهي أن أدويني جالسين وحان كعب صنايع ضدك كان هذا خي صومالي خياني أو أون لف مدح دي ده أو أبدا دلك أمريكان دلك يوروب دلك إنجليز أو مدح أو خاينين إن على الأقل بلدك كاس ملايين ناس كقرطة إلا لو شو ayaga laftigooda double agents oo 950 ay dad u shaqeeya inay dadka masaakiinta la xasuuqaya ay ka doodaan oo hadda loo fadhiyo arintaas inay ka kacaan oo bal oromada iyo amxaarada iyo ay la xiriiraan ila dad ma ayagu daanyaro weeyo dad maaragtay yani nool oo bani aadam oo hadli kara ma in la soo xirayo waa aaminsanay 99% iyo booliska dibka ay ku hayaan Soomaaliya gudaheeda iyo Soomaali galbeed isaaq bay xasuuqeen afar iyo ciise iyo boolis xasuuqeen shiikhal bay xasuuqeen garay xasuuqeen bareexan bay xasuuqeen ogaadeen bay xasuuqeen iyo boolisku hawiye xasuuqeen gaarana bargidir iyo boolisku xawaalada xasuuqeen iyo boolisku raxweyn bay xasuuqeen iyo boolisku murulay xasuuqeen iyo boolisku oran bay xasuuqeen marka waxa weeye iyo boolisku yani dhulbaantay xasuuqeen iyo boolisku jarteen bay xasuuqeen iyo boolisku يعني للكسي حسوقين يقولوا قبيل أيسن حسوقين أو مسلمة أو صوماليات مجرى صومالي الصعب بحسوقين صليبان بحسوقين عير بحسوقين قبيل أيسن حسوقين ولا ليال مجرى وهي حسوقين دقل يمرفل وهي حسوقين دي لايك المجرى وهي حسوقين والقبيل أيسن حسوقين ما مجرى وحالينا وقبنا يا مركة أوصل نغنيا مصبيحي يداوع يدي وإيديستي oo aan isbitaal dalka Mareykanka la iga daaweynayo dhibkii xun baa iskaan baa la saaray madaxa jubba iga gaartay xun ilaa qaarkood jid baa fadhiya walaalayaal dadku iska ciyaaraan waana iska qoslaan qori la isla dhacay looto iyo feer jirdil xabsi darbi madax loogu garaaco qofka dadka qaarkood ciyaar bay u haystaan marka walaalkay Muuse dhib xun buu ii geystay ciidamadii SNM dib xun bay ii geysteen falaagada amxaaradaha waana wax la wada jeeday oo Soomaali weyn u jeeday haddaan caawa dhintana jugtaas ayaan u dhintay Muusabixi ii geystay dhijog xun baa i gaartay waana walaalkay garbaana u dhiganayaa walaalkay weeye gobol baan u dhiganayaa caay mahay ceebeyn mahay ambaarayn mahay sharaftiisa iyo magaciisa waxba u dhiman mahay walaalkay waa i dilay garbaan u dhiganayaa iyo gogol ha iga garbaxo dib uu ii geystay jug buu ii geystay waa i dilay ha iga garbaxo walaalkay igu dilay aan u dhimay aan ka galabsaday waan imid dalkaygii iyo dadkaygii baan u imid Muuse anigu reer Berberaan ahay Muuse ma aha abi isir baan u ahay deegaanka Sacad Muuse oo Ciise Muuse oo habar Yunus baa habar jeclay xaaji dabacsan wala yaqaan reer Cadan buu ahaa reer Berber u ahaa dadkii Berbera asaasiib u ahaa marka ilaahay hadda deegaankanagii iyo guryahanagii wallahi nin maalin dhaw taga soo wacay inta u dhaartay guryihiinni baan taagnay guryihiinni Berbera ayaan hadda taagnay waraysana waa la yeelnay maalin dhaw ninkaas haddana maxaare iyo maartay lagu wareejinahay iyo wax daran iyo imaaraad ma yeelay anaana ka dagaalamahay si Said Maxamed uu yiri yaa canshuurtii ka qaad Ingiriis baan u leeyahay Ingiriis Ethiopia iyo imaaraad ma qaadanay dawladda Soomaaliya lacagtii 10 milyan ahay oo dawladda imaaraadku ay rabtay baarlamaanka iyo Soomaaliya inay ku burburiso waa ku maasantay inay qabatay waxay soo bandhigtay wasaaradda arrimaha dibadda ee imaaraadku maantay in diyaarad madani ah oo civilian laga qabsaday oo 10 milyan waday oo u waday ciidamada Soomaaliya ee imaaraadku ay tababarto heshiiskii ay dawladda imaaraadku la gashay 2014 اللي يعصي شقمان
heshiiskaas baadil buu ahaa ka kac buu noqday xaaraan buu ahaa saldhigyada ha la xiro dowladdu dalka amnigiisa ha la wareegto sidoo kale 11 xubnood oo guddiga hay-adaha kala duwan ee wasaaradda arrimaha dibadda gudaha amniga ee United Nations leeyahay horumar bay lala sameynaya guddigaas waxaan leenahay United Nations wanaag nooma soo wado IGAD nooma soo wado Union nooma soo wadaan Afrika nooma soo wado Soomaaliya walaalooba Soomaaliya isjeclaada Soomaaliya sunnaxa Soomaaliya sutura Soomaaliya cadowgiina idin ma rabaan cid idin rabta male Soomaaliya dalkiina iyo dadkiina diintiina u tura madaxweynuhuna waa ku mahadsan yahay ciidamadii magaalada tan dhex ordayay oo kharbadaada ka waday oo Imaaraadka iyo Itoobiya iyo Kenya waa ciidamada lagu leeyahay Soomaaliya ma ciidamada Soomaaliya amni darrada waa la abuuraa argagax baa la abuuraa wadada Makal Mukarrama waa wadada ugu cabsi badan ciidamo iska ordahay meel ay u socdaan iyo meel ay ka socdaan iyo waxay yihiin iyo wax xukuma qaar wasiirada leh qaar xildhibaan baa leh qaar waxa leh eedo qaar waxa la baalki qaar Amisom baa leh qaar Itoobiya leh qaar safaaradaha leh ciidamadan dalka laga joojiyo ciidamo booliis ha la dhigo saldhigyada magaalada Muqdisho amniga ha sugeen ciidamada militariguna xaafadaha ku jireen waxaan la yaabanahay halkii baabuurba maalintii $1,000 baa ku baxaysa batrool iyo gaas iyo xawaarayn war lacagtaan hala seef gareeyo oo qarashkan dawladda iska baxaya la seef gareeyo oo xildhibaanadan qarash ku baxayaan malaayiinta hala joojiyo oo baabuurtan iska xawaaraynaysa hala joojiyo wadooyinkii ciriiri bay noqdeen oo xawaarihii baa batay oo cabsi gelintii fara badan ciidamadan Amisomna hala kontrolo oo waxay qabtaan ay iska xawaaraynahay magaalada baabuurta iyo militarigu madaxweynuhu maalintii koowaad ee xukunka u qabtay aad u saxsanaa militariga magaalada laga saaro militariga magaalada laga saaro madaxweynuhu qorshihiisa balaaya ku kaadisay oo ku xaartay maalintii koowaad madaxweynuhu uu soo saaray militariga magaalada laga saaro xeriyahooda ha tageen aad u saxsanaa magaaladuna waa fiicnay madaxweynuhu qorshihiisii uu ka noqday dib ha ugu noqdo qorshihiisii ahaa maleeshiyooyinkan dhaqanka iyo akhlaaqda daran oo aan edebta lahayn oo isdilahaya oo isdhacaya oo isboobaya oo isxasaasaynaya in magaalada laga saaro oo ciidamo kooban oo isku dhafan oo la kala bedelaya hadba laaluush baa la qaataa dadka la iska xirtaa cagajuglayn baa jirta Amisom baa lala shaqeeya kuwa airportka waa in la kala bedelo ama sugidda airportka waa in aad loo sugo lacagahan malaayiin baa gashay airportka war dalkan faruun ka baxo war dekadaha balaaya ka socoto war madaxweynuhu dekadaha ka warhayo dalka waxa soo galaya laga warhayo war kun jeer baan idiin sheegay dalkan gacan kuma jiro walaalkay Muuse dilkiisii ayaan iska daaweynayaa iskaan baa la saaray raajooyinka feeraha kuwa qalabka madaxa anigoo dhanba waa la igeliyay meel walba dhiig baa fadhiya lugaha feeraha madaxa jug aad u xun meelaha qaarkood dilaac baa gaaray lafaha qaarkood marka walaalayaal marka waxa weeye ilaahay baa mahad iskale Muuse xidibkii uu geystay ilaahay ayaga soo kabo xaqiiqdii dad badan waa qoslahayeen way ciyaarahayeen waa riwaayad bay ka dhigteen laakiin ma ahayn walaalayaal xaqiiq bay ahayd si xun buu ii dilay Muuse hase yeeshee anu mana calacalahayo mana qaylanahayo waa la xasuuqayna ma dhahayo walaalkay sidii dhaqankeena iyo diinteena islaamku ay qabi jirtay anoon caytamin oo aan afdagaadoon oo aan calacalin oo aan xaaro u gelin yaan gogol u dhiganaya Soomaali weyna gogol baan u dhigtay walaalkay Muuse gogol baan u dhigtay idinkaan idin gardibtay Soomaaliyay isaaqow walaalayaalow idinkaan idin soo geed fadhiistay gogol baan dhigtay isaaq waa gob waa sharfeen way soo dhaweeyeen waa haliyeeyo waa wadaniyiin waa dadka nagi waa jeclahay ilaahay xifdiyo ilaahay dhawro ilaahay baana maaragtay naftii hadda ay qaaday alxamdulillah qeyb ka sidaran baa dheerahay laakiin jog xun leeyahay